الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إله mahad سبحانه وتعالى بعد حمد الله وحان mahad celina dadkii masaajidkan ما شاء الله تبارك الله quruxda badan oo runtii mar badanna barnaamijyo iyo muxaadaro aan ku duubnay qof kasto arkan ay weydiinayo dhahay masaajidkan tuu ku yaala oo ma Hargeysa ku yaala ma dibadaha joogteena وهكذا. لكن ولا ليال waxaa cad meesha ay muuqato in masaajidka gacan adag lagu hayo oo imaamkeena Allah barakeeyo Sheekh Maxamed oo runtiisa indhihiisu ka jecel yahay ilmihiisu ka jecel yahay oo mar walba masaajidka dhinac waliba ka hagaajiyo oo runtii tabarteena ay run sheegtay wixii karaankiisa uu ku dadaalay oo safar ka soo bilaabay oo shakhsigiisa mar waliba waxaan aragnaa ma sha Allah tabarakallah in culimadii suba bedelaan muxaadaraadkii oo xaafadii ay dadkii joogay qulubtooda ay qoyeen xaqiiqatan oo iimaan ka buuxsamay oo diintooda ay barteen in badan waa qof intaas dadaal uu sameeyay. Soomaalidu waxay dhahaan far kaligeeda fool ma dhaqdo, wajiga far kaliya ma dhaqdo, laakiin gacmaha dhan markay is caawiyaan ayuu wajiga si fiican u dhaqi kartaa. Marka masaajidka xaajaad fara badan baa ka maqan, sida guryaheena uga fikirno u qurxino oo mar waliba alaabtii aan u bedelno haddii wax yar ay jaban yihiin wax cusub aan raadino. sidoo kale baytullah ahlullah bad u istaagi kar mooyaane qofan ilaahay u doorin oo ilaahay waafajin uma istaagi karo masaajidka. waxyaabaha hadda ma sha Allah aan ka faa'iiday sheekha qaybta salaan aadnay ani asaga jazaahu Allah khayran qaybta dumarkii waxay ku qasban yihiin in meesha yaroo duleysha ay ka soo foorarsadaan say u arkaan muxaadarada meesha ka socota ee sheekhi khayrka sheegay. laakiin hadday dhaga in wax ku dhageystaan ay tahay inay imaadaan looma baahna oo YouTube-kii Facebook-yadii ka buuxaan culimadiyo meeshay ka dhageysan lahaayeen. laakiin masaajidka markay imaadaan waxay jecel yihiin inay helaan si live ah muxaadarada u dhageystaan. marka ay koomaamoyn ah in dushii ka soo laalaadaan xaqiiqatan munaasab ma ahan. meel fara badan baan runtii soo marmaray. marka masaajidka xaaladiisa runtii meel fiican bay maraysaa hadda oo meel laga dhaqaajin karo marooya. maalin uu ahaa safar oo eber ah waxba aan oolin sida u muuqato oo u jeedin ama waxa weeyaan hadda shaashada ka aragtiin. laakiin maanta ma sha Allah tabaaraka Allah xaafadan wuu qurxiyay. wuxuu u baahan yahay masaajidka masaaxif, wuxuu u baahan yahay xalaqaad qur'aan, wuxuu u baahan yahay macallimiin tayo leh inay imaadaan, wuxuu u baahan yahay xalaqaad dumarka ay ka faa'iideysan karaan dusha sare, wuxuu u baahan yahay suulada masaajidka in laga fikiro iyo xaajaadkiisa laga fikiro. marka Allah idin barakeeyo, beydkan ilaahay ayaa idin khuseeyo kanana wada jamciyo guriheenu waynu kala leenahay laakiin kan waynu wada leenahay waa inaan wada dhisanaa waqti sadaqa waqti tanazzulat arrahmat والبركات وقت العتق من النار رمضان كريم. قف كستو كلبكي dhageysan doono jaamac nasr الدين في hargeysa kaalmadaada u baahan yahay hal dollar $5 $10 $100 ilmaha yarka inaad wax u sadaqayso oo sadaqa u bixiso isku day. masjid jaamic nasr الدين inuu jamciyaan u baahannahay oo furqadeena jamciyo qulubteena jamciyo. jaamic nasr الدين waa masaajidka loogu gargaarayo ama heel oo ka heel dacwada heel ay ka helaysi. Allah idin barakeeyo. xoolaha bixil uu leeyahay adi xataa ma lihid خالقا كسيي حداد كو حسابتنيسد $100,000 ama $2 milyan ku xisaabtamaysid ogow maalinta adoo qawan imaanayso qaylinayso la soo ogow. markaas aayada soo xasuuso oo anfiqu ya hadli rabbi bixi wax ka bixiya mimma razaqnaakum waxa idin siinay wax kamid wax ka bixiya kulligood xataa ma. marka Allah idin barakeeyo. waxaa marka u horeysa u mahad celinayna
dadkii muslimiinta ahaa ee soo dhisay masaajidkan quruxda badan Masjid Jaamac Nasuudiin. waxaa halkan jooga guddidii masaajidka doonaysa in ay ummadda muslimiinta ay ka farxiyaan lana wadaagaan hawsha quruxda badan leh ee masaajidka ka socota. masaajidku waxa uu ka mid yahay masaajidada magaalada Hargeysa ee dacwadu ay ka socoto. masaajidka haddii aan gacanta lagu hayninna waa uu dhimanayaa. masaajidkan quruxda badan sanadkii saddexaad ayuu galay uu saddex jirsaday. dad muxsiniina oo khayr jecel ayaa dhisay. dadkii markii hore dhisay ee dhaqaalaha ku bixiyey iyo muslimiinta kale oo daafaca caalamka iyo gudaha dalka gudahiisaba joogta baanu la hadlaynaa, baaq u diraynaa. masaajidkii 3 sano u gaadhay wuxuu u baahan yahay in dib loo habeeyo oo rinjigiisa iyo qurxintiisa gacanta lagu hayo. marka waxaan ugu baaqaynaa dadkii markii hore muxsiniinta ahaa ee dhaqaalaha geliyey in maantana ay sii qurxiyaan si masaajidkii iyo dhaqaalihii masaajidka ay geliyeenba u sii qurux badnaado, u sii wanaagsanaado. dadka muxsiniinta waxaan leeyahay dhaqaalaha maanta masaajidku masaajid jaamac weyn buu noqday oo xaafadda ku yaala, waanu weynaaday oo aad buu weyn yahay. kharashkiisa iyo hawshiisuna aad bay u badan tahay. marka rinji la marinayo iyo iyadoo lagu biirinayo kamaradihii iyo dabaqyada sare oo la doonayay in muraayadii tiifiyada lagu xidho ayuu u baahan yahay. sida sheekha hore Sheekh Xasan uu ka dhawaajiyey ama Sheekh Maxamed oo imaamka masaajidka uu sheegay, waxaan leenahay masaajidkii aad ku tacabteen ee dhaqaalaha geliseen Ilaahay idinka jisaysiiye. maantana wuxuu u baahan yahay in dib loo habeeyo oo rinji iyo wixii kale ka dhindhiman iyo kamaradaha iyo tiifiyada dabaqa sare ayuu aad ugu baahan yahay. marka waxaan ugu baaqaynaa dadka khayrka jecel gudaha iyo dibaddaba in laga qayb qaato. bishii Ramadaan ee khayrka lahayd bishaasaynu uga faa'iideynaynaa masaajidka. wixii khayrka lahaa bixin lahaydeen ama wixii aad sadaqada u bixin lahaydeen ama wixii magaranaysa waalidiina u bixin lahaydeenba masaajidka u baahan. insha Allah laga qayb qaataan leenahay. sidii culimadii hore u sheegtay ee guddidii masaajidku ka dhawaajisay tii baanu annaguna ku taabacsannahay. dadka muxsiniinta ee horena wuxuu bixiyey maantana diyaar ku ah waananu u ducaynaynaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa in halkii ka soo saareen wax ka badan ilaahay geeyo, inuu siiyo kii waalidkii u bixiyana ilaahay subxaanahu watacaala inuu xasanaadka miisaanka ilaah u saaro. masaajidkuna had iyo koor dee wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo. maaragtay culummada masaajidka haysa mu'adinka iyo imaamkuna si fiican iyo shaqaalihiisu si fiican bay uga shaqeeyaan. oo kaasoo waanu nuurayaa, waana lasii nuurinayaa. ilaahay idin nuuriye. nin walba wixii aad kari kartid waalidkaa u bixi, sadaqada baxso bisha Ramadaan khayrkeeda. wixii aad sii hormarsataa waa waxaan kaa lumayn, waa wax Ilaahay hortiisa kuu yaala. wixii hadba u baahan yahay masaajidka iyo wixii la noolay dee inaynu hareeraha ka taagnaato, loo wada jiro, loo kala fadhiisano, loo midaysnaataa wanaagsan. wuxuu u baahan yahay dee in gacanta sidii loogu hayo oo aan la ilaawin. oo sharafta waxay ku jirtaa in gacanta lagu hayo. quruxda uu leeyahay dee muu raadin haddii mudaayici joogto ama la daayaco. halkaa in laga hayo oo aan laga sii dayn, aan la ilaawin oo sidaa loo ilaaliyo. ilaahay haynagu ilaaliye ayaa loo baahan yahay. ilaahay gargaar haynagu siiyo. ilaahay waa raxmaan oo waa raxiin. horuu inoogu saqarada haynoo socoto. wixii kolba sharaf ahee qurux ahee masaajidku u baahan yahay Allah inoo fududeeyo. Allah inoo fududeeyo. qabriga iyo qiyaamaha iyo su'aasha iyo geerida iyo sakaraadka Allah inoo fududeeyo.